taariikhda hidahan habaaska ka tiraa hanaankii aan ku soo dhaqmaynay baanu hiilinaa taariikhda hidahan habaaska ka tiraa hanaankii aan ku soo dhaqmaynay baanu hiilinaa wargeyska dalka kama mid ahayn wargeysyadii wadanka ka jiri jiray ka hor burburkii dawladda dhexe ee 91 laakiin wuxuu ka mid ahay maadaama marxaladii 22 Oktoobar wargeys la jiray uu jiri jiray xidigta Oktoobar aan dhahay uu jiri jiray marxaladii dambe dawladihii jiray waxay u arkeen in xidigta Oktoobar ay marxalad la xiriirsaneed oo dalka maamul mucayan uu ka jiray oo military oo dalka markaas ka jiray marka waxay ka fikireen in la helo wargeys kale oo la siiyay magaca wargeyska dalka marka wargeyska dalka waxa asaaskiisu ahaa 1992 sida ay dadkii barigaas u joogay noo sheegeen tan iyo waqtigaasna marxalado kala duwan soo maray waxa jirtay xukuumadahaas marxalado uu si fiican u shaqeeyay oo printingka ama daabacaadu ay aad suuq u lahayd ka hor intii aan 2000 bilowgeedii 99 dabayaaqadeedii aysan soo bixin FM-yada iyo idaacadaha oo roolkii saxaafadda daabacan ilaa xad meesha ka saaray ama ugu yaraan maaragtay balance gareeyay oo dadka ay idaacado ay soo galeen fieldiga wixii waqtigaas ka dambeeyay wargeysyada daabacan badankoodu sidii hore uma shaqeynayeen hayeeshee wargeysku wuxuu ka mid ahaa wargeysyada markaas jiray oo dawladihii ay daabici jireen dawladdii cabdiqaasim ayaa iyadana mar daabici jirtay xilligii dawladdii Allah naxariistay madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf Axmed asagana marxaladaha kamida waa la daabici jiray kadibna labadii dawladood ee ka dambeysay tan hadda ugu dambayso si wuxuu soo bixi jiray marxali ah oo hadba ku xiran duruufta markaas wasaaradda warfaafinta ka jirta haddii ay jiraan imkaaniyaad lagu daabici karo oo lagu joogteyn karana waqtiga la isku day in la sameeyo wuu soo baxay marka marmar uu soo bixi jiray si bil ah marmar uu soo bixi jiray si toddobaadle ah marmarna wuxuu soo bixi jiray bishii dhowr jeer ama 2 jeer ama mararka qaarkood 3 jeer si aan muntadim ahayn oo aan aad u nidaamsanayn ay soo bixi jiray ujeedku wuxuu ahaa in wargeyskaas inuusan meesha ka bixin oo uusan wada dabar go'in ugu yaraan uu xusuusta ku jiro oo maaragtay markii loo helo imkaaniyaad dalku sidaad ka warayso wuxuu lahaan jiray printing house ama madbacad qaran oo imkaaniyaadkeedu ay aad u sareeyaan aadna u weynaayeen shaqaale badan ay ka shaqeynayeen dakhli badan soo saarayst iyada naftirkeedu industry ka dhignayd oo maaragtay imkaaniyaad badan lahayd oo xataa laga yaabo inay wasaaradaha iyo hay'adaha dawladaha qaar kamidu ay ku tiirsanayeen wax ay soo xareyso iska dhaaf wargeys ay daabacday waa barigii hore ka sheekeynayna hadda laakiin waxaas ma jiraan dalka printing houseska ka jira waa farakutiris 2-3 waaye marxalad waxaan ku soo daabici jirnay wargeyska meel ka baxsan wadanka mararka qaarkood imaaraadka mararka qaarkoodna Kenya marxaladii ugu dambeysay oo imkaaniyaadku ay aad iskaga sii liidanayeenna waxaan ku daabacaynay gudaha oo laga helay dhowr printing house oo Soomaali ay leedahay marka daabacadii ugu dambeysay hadda 2 bilood ka hor ay ahayd oo aan u soo saarnay qaab magazine oo kale ah ilaa iyo 4 edition oo kamid ah wargeyska oo maaragtay template yar oo qurxoon aan u sameynay oo ay noo daabaceen shirkado local ah oo مثلا Badar Electronics oo kale ay kamid yihiin Badar Printing House ayaa noo daabaceen marka wargeysku qaabkaas ayuu horta u soo baxay xaaladiisa guud waa sidaas marka maadaama hakad uu imaanayo hadii jeer oo aysan jirin miisaaniyad sax ah oo allocate gareysan oo u degan oo ku filan oo wargeyska lagu soo saari karo ama weekly ha noqdo ama billaha ha noqdo laakiin aan lagu soo saari karin hadda aysan in place ahayn oo aysan miiska noo saarnayn waxaan ictimaadnay oo aan aad diiradda u saarnay inaan si kale aan uga shaqaysiino wargeyska oo online-ka ugu yaraan uu active ku ahaado inta internetyada booqata waxay arki kartaa wargeyska bogga uu ku leeyahay internetka oo ah www.dalkajournal.com
oo ah page si fiican u design garaysan oo dynamic ah oo wararkii ugu dambeeyay ay ku jiraan oo hadii jeer dadku ay ka heli karaan sidaas si lamid ah waxaa associate la ah oo la xiriira bara bulsho ama social media Twitter account iyo Facebook page oo wargeysku u leeyahay oo wargeyska dalka مثلا hadii aad aragtid Facebook-giisa waa verified ama wuxuu leeyahay calaamada recognition-ka ee tigta la yiraahdo si lamida laba hay'adood oo kale oo warbaahinta dawladda ka tirsan oo SNTV iyo Radio Muqdisho kale dood ah ayaa loo verify gareeyay ilaa iyo 36,000 oo qof ama like ayuu leeyahay oo ku xiran oo iyadana sii koraysa oo hadii jeer sii koraysa